wafdi ay hogaaminayaan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo wasiirka ganacsiga iyo iskaashiga mandaqada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayna weheliyaan dhammaan wasiirada ganacsiga ee dawlad deegaanada dalka ayaa maanta waxa ay soo gaareen magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar oo si meeqaam sare ah loogu soo dhaweeyay ujeedada ka dambaysa imaatinka wafdiga ayaa waxa ay tahay in magaalada Dhagaxbuur laga fuliyo barnaamijka tabarucaadka xilliga xagaaga ah oo markaas sanad walbaba guud ahaan dalka Itoobiya goobo kala duwan laga fuliyo magacayga waxa la yiraahdaa Mukhtaar Goohe yaa la yiraahdaa aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo wafdiga hogaaminayo waan soo dhaweynaynaa markaas sacab furan baan ku soo dhaweynaynaa hadaan bulshada Dhagaxbuur ku nool shucuubtanadu maanta wallahi aad bay u faraxsantahay maadaama oo soo dhaweynayno wasiirada heer federaal iyo adigu madaxweynihii maaragtay deegaanka maadaama soo dhaweynayno shucuubtanadu aad bay u faraxsantahay bulshaduna aad bay u wada faraxsantahay waan soo wada kala noqon magacayga waa Qaali Axmed Cabdi waxaan salaamayaa madaxweynaha annaga madaxweyne soo dhawow baanu leenahay madaxweyne soo dhawow dalka iyo diinta ku jecel shicibkaaga ku jecel diinta iyo dalka iyo dawladda kor baad u qaaday alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waan faraxsanahay soo dhawow baan leeyahay soo dhawow dalka iyo diinta iyo annaga oo shicibkaaga ayaa ku jecel alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaana u mahad celinayaa إلهي نوكيني أيانو مهد علين هيا وفلله الحمد هسودة وهذا إساقا إيا الدولة إيا شعبك إيا وحي الله صعبا قعن بانو كسو دوينا وقعن بانو موجينا هسودة وهذا مدحوينا هنو هسودة وهذا هيل إيا هو بانو ولا تاغنا هاي waxaan joognaa magaalada Dhagaxbuur waa maalin Jimcaha oo wanaagsan oo aad u faraxsanahay waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaan soo dhaweynaynaa soo dhaweyntii baan ku jiraa ma soo dhaweynta farxadda leh baan maanta laabida u taaganahay wafdiga uu madaxweynuhu hogaaminayo heer deegaan iyo heer federaal ayaan si farxad leh u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol magaalada saaka waa indhaha macallina magaaladu waa farxad iid baad moodaa ilaa iyo 7 kiiloomitir bay dhan walba taagan tahay oo la soo dhaweynaya dawladdeedu u dabaaldegaysaa waa la rabaasayaa aad iyo aad baa arintu wanaagsan tahay waxaan soo dhaweynaynaa wafdiga heer federaal iyo heer deegaan ee madaxweynaha iyaga sharafta leh Mustafa Maxamed Cumar uu hogaaminayo iyaanu si aad iyo qalbi furan u soo dhaweynaynaa shacabkii haddaan magaaladii nahay caleemaha iyo soo dhaweynta caleenta iyo dumarka ciyaalka odayaasha cuqaasha waxgaradka suldaamada saasaan u soo dhaweynaynaa oo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wafdigan
شفتها ساكا والله سفي عوان كفرحسنها ما دام كل كره كاغري دولده iyo intii soo jeesay ma had ilaahay waan ka gaarnaa la meersar hagii farxad weyn bay u dhaxaysaa wallahi ma sha Allah waan ku faraxsanahay dawladdeeda iyo intii la soo qaban qaabisayba Allah barakeeyo kare kalma madaxweynaha dawladda deegaanka Mustafa Maxamed Umar waan ku faraxsanahay dareenkayga aad u faraxsan boqolkiiba boqol dawladana Allah barakeeyo madaxweynaha waan ku faraxsanahay aad baan faraxsanahay maanta waxay noo qabtay guriga noo dhisaysaa waan ku faraxsanahay ciyaalkayguba guriga maradan galaynay boqolkiiba boqol ku faraxsanahay waxaan ma celinayaa madaxweynaheena waxaan u celinayaa dawladdeena dhammaantood ayaan u celinayaa Allah barakeeyo dhammaantood barnaamijka loo yaqaano tabaruca xilliga xagaaga waa barnaamij hadda ra'iisul wasaare Dr. Abiy intuu yimid la bilaabay jeedadiisu waxa weeye in la isku xiro shacabka oo dawladda federaalka iyo mas'uuliyiinta federaalku ay tagaan deegaanada oo dadka ay u shaqeeyaan ay bartaan oo aad sabab una la fadhiin marka ay dadka soo booqanayaanna inay wax soo kordhiyaan oo sidii hadda ka hor aynu naqaanay wasiiro iyo dad intay yimaadaan oo indheeyaan oo dhegayaan iska laabta ayna noqon inay wax la yimaadaan marka hadda maanta wasiirku mudane Kaasahun mashaariicda inoo wadi xagga ku saabsan xagaaga waxa kamida in la caawiyo oo buwaagta iyo agabka waxbarashada laga caawiyo ilaa 200 oo arday waxa kale oo kamida 20 guri oo 3 qol ah midkiiba oo casri ah oo naqshad fiican oo loo sameeyo dadka masaakiinta ah si loo maartay wax looga qabto dhibaatada guriga la'aanta labada hawlood buu isagu yimid ዛሬ መጣንበት ዋናው ዓላማ ሌሎች ብዙ ነገሮች ቢኖሩም ለተማሪዎቹ ujeedada ugu muhiimsan ee maanta u imaanay waa sidii ardaydan maanta in hor fadhida ee taageerada u sameynay ugu adkaan lahayeen waxbarashadooda ka wasaarad ahaanna taageeradan waan sii wadi doonaa mustaqbalka waayo saynis yahanada dhakhaatiirta iyo kuwa bari in bedeli doona maadaama aad tihiin aan aaminsanahay waa bilow mooyee dhammaad maaha waana gurigaanagii si aan idin dhiiri gelino oo weyn muhiimadu aan ku hadlay magaca wasaaradda waxaan idin leeyahay ku dadaala waxbarashadiina bartu tatanakaru lamaad falgeeno basektaru sum maanta waxaan noo yimid wafti ka kooban laba kooxood wasaaradda federaalka wafti uu hogaaminayo wasiirka Dr. Kaasahun iyo wafti kale oo uu hogaaminayo madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar labada wafti oo isku dhafka ah waxay magaalada Dhagaxbuur maanta u yimaadeen inay 3 shaqo ka qabtaan shaqada koowaad waxay ahayd guriga wadareed 20 gaaraya oo ah dadka danyarta ah ama dadka masaakiinta loo dhisayo dabcan guriga yar oo daciif ah oo fool xunay markii hore ku jireen inta laga dumiyay in guriga fiican loo dhiso 20ka guri maanta la bilaabay waxaana lagu dhameystirayaa muddo kooban oo 45 cisho gudahooda waa lagu dhameystirayaa laguna gali doona hadii la yiraahdo dhinaca kale waxa la sameeyay dhirbeeris fara badan oo geeda kun ah oo laga keenay muxuu ahaayeen jigjeeg ka soo qaadnay iyo kuwa magaalada Dhagaxbuur laftigooda aan ka dhex sameynay
ayaa iyana lagu beeray beerta bulshada iyo meelo kala duwan. qodobka saddexaad wuxuu ahaa ardayda danyarta ah oo gaadhaysa 200 laga soo xulay dhammaan iskuulaadka magaalada Dhagaxbuur ayaa iyagana waxaa loo qaybiyey agabkii waxbarashada oo dhammaystiran. intaa waxaa dheer waftigu maanta noo yimid waxay magaalada Dhagaxbuur dhagax dhigeen saylid caalamiya dhammaystiran kaabayaasheedii asaasiga ahaa leh. runtii aan horay aan siday ay warbixinta nagu siiyaan aan looga dhisin deegaanka 3 gooboodna Itoobiya hadda laga bilaabi doono midna ay baali tahay meelna ay deegaanka Soomaalida oo Dhagaxbuur ay nasiib u heshay tahay. wasaaradda ganacsiga ee heer dal ama federaalka ayaa waxay dhisaysaa mashruuca muxuu ahaayay sayladaasi waxay ku shaqo geli doontaa sanadkan 2017 sanad miisaaniyadeedkaas ayaa la dhammaystiri doonaa laguna shaqo gelin doonaa haddii la yiraahdo. sida aan kaga helay xog wasiirka wasaaradda ganacsiga ee federaalka wuxuu noo xaqiijiyay inay noqon doonto muxuu ahaayay saylad kaabayaasheedii asaasiga ahaa oo dhan leh goobo lagu ganacsado oo gudaha leh goobo xoolaha lagu nasiyo leh goobo maxaan idhahdaa ariga si dhib yar ama xoolaha kala duwan looga rari karo noqotana xarun inay u noqoto deegaanka Soomaalida ganacsigiisa xoolaha la xiriira. marka shaqooyinka caynkaas waa maanta la qabtay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shaqooyinka laga qabanayo magaalada. shacabkan waxaan ugu baaqaynaa inay horumarka caynkaas kala duwan dawladda deegaanka iyo midda federaalka ka imanaya inay kal iyo laab ku soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan. aad iyo aad noo mahadsantiin.